غزة سيقولون وارث دول كيدجان غزة أنا هذا هاي أمد الصوماليات قاجوا ودول قاعدين كرنا لاكس قميص ومد القاعدين كرنا ما نقبلينهم قالوا واحد اللي إيران قنصم هاي أنا دين توكر عدن معه يهود إلهي وأنا على ذي سومالي لأن إنا قاطع علنك يهود هذا أنا وحما هاي قادة السياسية إسرائيل هيك شيء شعب الصوماليين تاسي هو قاعد ستين بربرسيد للنمو الصومالية أنا قاعد ستين كارتشرت ذل كان ونحن جذبته بن عليه وضن كان كنت كشخصية عن أدبن عركت بصور كذا عن وارك إنه يهي ضعفرة كفراء دول النمو العالم كجته عقبنا كواه نسيت الدنيا وشقيسو وحنا دتك Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Soomaaliland u sheegay musu jeedin lahaa in Israa'iil aysan halkan u imaaneen inay wanaag noo shaqeyso inay dad wax tartay u timid kaliya inay wax foodeyso in ummadan Soomaaliyeed qorti ku geliso in qoriga dabka ay la wareegayso ee dadka Soomaaliyeed hor keento marka waxaan kula talin lahaa dadkaas inay u kaadsadaan Soomaaliyeed wax leeyihiin Soomaaliyeed wax leeysan tabashada ay qabaanna miiska Soomaaliyeed lagu xaliyo aan lagu xalin Israa'iil iyo dawlad kale isma xalin waxaan aragtay soo jeedinaa dadka Soomaaliyeed hadlayo warbaahinta ka hadlayo inaysan ummadda Soomaaliyeed isku dirin caadifad muujinay aragtida qabaan saliim u soo bandhigaan cidii diin Israa'iil waayo dadka Soomaaliyeed ma ahan in dadka Soomaaliyeed walaalahayna gaf siyaasad laga gelin cirdigooda sharafkooda la caayay maqaamkooda loo gafin yahuud iyo balaayo lagu tilmaamay dadka Soomaaliyeed hawshaas gaalaysiin nabada loola hadlo lagu soo jito waxa kale oo talabixin soo jeedin lahaa dawladda Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed isugu yeerto maamulada ka maqan gaar ahaan Puntland dib ugu yeerto tabashada ay qabaan ka qanciso dadkaas waa dadka aan soo arkay maanta midnimo waxaan wax noogu gooyaan الله حفص عبد الناصر فارح كركي قادين سومالا وفكر آد وقلدان كمان الراعسنين أنا هرتا فكر كأمسنا وحي تاي سومالي لان إني تاي سومالي مدها يوا قبل مدها يوا وحكلا لكيس وحي أمسنها سومالي لان إني تاي سوماليا مقع كلية سوماليا إنو سومالي اسكو بدليني سوك أنا قبارك قامهن سوك أنا قتالك لو وحاو الشيغيا وحاو الشيغيا سومالي إنه إلهي نمعسيي نمعداس نوحا كبقيا إنه كنا قد قام كيرير سبا إنتو إلهي نمعداسيي كوكفريي سواح باد كلا إهلين وحا إلهي أطوبت كينا أصوى نقضة يهودا نحراعين يهود أيضا بعدوك لقا أخوصلين بحي اعتراف كلا نقصينيسا قولي استعلي مرولي أي حمد حسن محمد ديغتا كميدا عردة ديغتا اسكولك اسوال السري قال كعيو waxaan maanta isku soo baxnay maanta taariikhda 30 bisha 12 2025 barnaamij loo soo horjeedo اعتراف بيانات kala siiyay maamul kamida maamulada Soomaaliya ee Somaliland waxaan leenahay marnaba yuhuud meel naga ma soo gasho awal baharo diinay Itoobiya aqoonsiga hadana waxaan leenahay yuhuud meel naga ma soo gasho aqoonsiga Somaliland oo aqoonsaday maxaa dhahay maamulka kale ee Israa'iil waan ka soo horjeednaa hadaan nahay bulshada Soomaaliyeed sababtoo ah Somaliland ma ahan gobol ee waxay tahay waa maamul kamid ah Soomaaliya marka maamul kamid ah Soomaaliya in loo aqoonsado wadan waa wax nagu ah sharaf daro aan noo cuntamin hadana ay aqoonsanayso Israa'iil oo aan ognahay Israa'iil inay quraanka ay dhinacyo badan ay ka soo gashay in Israa'iil soo dhaweysanin inaan lala saaxiibinin inaysan soo gelinin maadaama aan nahay anaga dad muslimiin aan nahay waxaan ka caraysanahay gobol Soomaaliya kamid ah inay aqoonsato diintiina iyo dalkiina iyo dadnimadiina u gafayso sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sida sharafta badan oo qiirada leh oo dal jeclida leh oo dad jeclida leh oo ugu dhiiraday una gacan sayray in يهود إلهي واللعنة إلهي وعير كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله سورة المائدة كجرتا مركز أي معناها ضروريان أي نار شدان إلهي بادمية ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين مفسدين إلهي مجعلا مركا يهود إلهي هذا نوحيري أولئك الذين لعنهم الله كواس وكو إلهي لعنة ومن يلعن الله وقف إلهي لعنة فلن تجده نصيرا موضوع كلام معناها يهودا فلسطين بيصابها بيان غزة سيقولون وارث دول كيدجان غزة مقالوين وطبقية iyo caalamiga ahayd oo gobolna gobolkaasna muslimiinta joogtay way laayeen carruurtii bay laayeen haweenkii bay laayeen odayaashii doqoshaha muslimiinta ay laayeen Falastiin غزة say ugu tunteen kale rabaan Soomaaliya inay dagaal ku soo xawilaan marka oo dagaal soo xawilayo oo geeska Afrika iyo Soomaaliya lagu burburinayo way macnaha hadii marka هذا رأي بلابته حوتيين تبا وحليين أنا بملك إسرائيل أنكو عرقنا Soomaaliya ama ay xafiis ka furtaan waa duqeynayna
marka waxaa lidin leeyahay soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha midowdo ha noolaato gobollada soomaaliya waxaa laga codsanayaa inay macnaha dowladdooda ay taageeraan madaxweynaha soomaaliya iyo wasiirana waxaa laga rabaa inay dadka isku soo jiidaan sida jubbaland iyo puntland iyo somaliland iyo gobollada kale oo dhan in macnaha la isku soo jiido oo dadkii macnaha tabashaqda in tabashadooda la xalliyo in hoos wax loo mayro soomaaliya hoos bay waa inuu macnaha u xallisataa wixii kaloo cadowana waa in isku meel laga soo jeestaa qofka marka soo raaco ka bacdi bay aqoonsadaan waxaan isla marka anoo hadda iyagu waa raaceen Soomaaliya dhima waa wadan Soomaaliya kama walaaleen weeye laakiin waxa leenahay ka jooga isi gumaysiini horseedin baa leeyahay waxa weeyaan Roodo Cabdisaaq Cismaan waxaan ka soo horjeedaa fikirka Yuhuudda ee qaatay Somaliland waa gobol kamid ah gobolka Soomaaliya waxaan nahay dad muslimiin ah oo shahaadana laa ilaaha illa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam Yuhuudda Ilaahay baa nacaladay Somaliland inay qaataa calanka Yuhuud aadeed ayaan uga xumahay waxaan ku boorama waa dad muslimiin ah oo Soomaaliyeed waa dad ma sha Allah calan Yuhuudna ma aysan qaadanin Soomaaliyana way taageersan yihiin oo kama xuma magacayga Aamin Abdirahmaan waxaa ku soo hadlay magaalada Gaalkaayo waxaa diilay Soomaaliland naga dhaaf Yuhuudda raadan calanka Soomaali hanoolado waxaan leenahay dalkan Soomaali baa iska leh Yahuud ma leh dadkii Yahuud ay golol ay u fidiyay oo u yimaadeen golol ay u fideen waxaan leenahay haddii adinka ay rabtaan gaalada raac laakiin dalkeen waxaan leenahay maana marna yeelmayno in ay gaalo dhinaca gaar ay u goosato mana ka aqbalayno anti wiil yar oo Soomaaliyeed dalkan ay ku nool yahay aniga haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed gaajo u dul qaadan karnaa laakiin gumaysi uma dul qaadan karno mana aqbalayno man yeelayna asuu yahay Anas Cabdirashiid meesha maanta waxaan laga hadlayaa banaanbax la iskugu soo baxay Soomaaliyeed oo dhan ay iskugu soo baxday aan diidayna ka soo horjeedno Somaliland waxay sameysay iyo maanta ayagoo dad walaaleena ah inay maanta ay u jeestaan ama ay ka raadsadaan aqoonsi gaalada waa ka xumnahay Soomaali bay ka mid yihiin Somaliland waa anagana tirsan inay iska saaraan maahan marka waxaan leeyahay Somaliland waa gobol ka tirsan Soomaali shacbiga Soomaaliyeed aynu ka dhalanay ee sharafta leh waxaan leeyahay Benyamin Netanyahu waa nin waaru jiran yahay ninka soo qaban lahaa Ilaahay inuu ka dhigaa milah anigan waar ma u jeed Benyamin Netanyahu ninka soo qaban Ilaahay ka dhigaa amiin waar ma u jiran shacbiga Soomaaliyeed sharafta waxaan leeyahay diintiina ilaashada dalkiina ilaashada midnimada muqaddis shacbiga Soomaaliyeed guulaysan leeyahay